munaasabad gobolka Banaadir kula wareegaya adeegyada caafimaad ee gobolka Banaadir ka qabato wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabada oo aad loo soo agaasimay ayaa waxa ka qayb galay wasiiro ay ku jirto wasiirka caafimaadka Dr. Fawziya Abikar Nuur, wasiir ku-xigeenno, xildhibaano ka socda labada aqal, xeelarayaal caafimaad, hoggaanka sare ee gobolka Banaadir oo uu horkacayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Filish, ku-xigeenkiisa amniga iyo siyaasadda, gudoomiyaasha degmooyinka, agaasimayaasha kala duwan ee dowladda hoose iyo gobolka Banaadir, madaxda rugta ganacsiga Soomaaliyeed, ururada bulshada rayidka, salaadiin, ugaasyo, culamaa u diin, kooxda fanka gobolka Banaadir, caruurta agoonta ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo waxgarad kala duwan. Dr. Maxamed Yuusuf oo ku hadlayay magaca dhaqaatiirta Soomaaliyeed soo dhaweeyay daadajinta daryeelka caafimaadka bulshada ee maanta lagu wareejiyo gobolka Banaadir. waqti in muddo la soo waday oo ah ciwaanka halkan ku yaalo hoos u daadajinta wareejinta wasaaradda gobolka Banaadir caafimaadka adeega caafimaadka. waxaan rabaa marka haddii la ogolaado in aan wax yar taariikhda waxyaabaha la wareejinayo meeshay ka soo bilaabatay iyo meeshay hadda joogto in aan wax yar aan maaragtay wax ka yiraahdo. waxaan u kala qaadaynaa marka shalay iyo maanta oo la joogo. shalay caafimaadka adeega laga bixinayo waddanka laga bilaabo 1991 ilaa iyo 2012 adeega caafimaadka waxaa bixinaya hay'adaha UN-ka iyo hay'adaha kale. laga bilaabo 2012 ilaa 2016 adeega wasaaradda caafimaadku waxay hogaaminaysay qorsheynta, laakiin arrimahaas kale markaas waxaa adeega bixinayay hay'adaha. laakiin laga bilaabo 2016 waxaa aad maaragtay loo bedelay oo la magacaabay xafiiska isku duwa caafimaadka gobolka Banaadir ee wasaaradda caafimaadka. wax badan ayaa isbedelay. waxyaabaha isbedelay halkan kuma soo koobi karo sababtoo waqti badan ma hayno. laakiin waxyaabaha isbedelay waxay ku qoran yihiin waraaqihii iyo dukumiintigii la kala wareejinayo ku qoran yihiin. shaqooyinku waxay kala ahayd markii la magacaabay isku duwa caafimaadka waxaa la magacaabay iyagana in la magacaabo garbihii la shaqayn lahay oo iyaguna ka shaqayn lahay meesha caafimaadka gobolka oo ah heer gobol. dadkaas markii la magacaabay waxay kala yihiin madaxa caafimaadka talaalka, madaxa caafimaadka nafaqada ama nutritionka, madaxa caafimaadka taranka, madaxa caafimaadka wacyigelinta ama baraarujinta caafimaadka iyo madaxa xogta caafimaadka. wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur oo wareejisay adeegyadii caafimaadka ee gobolka Banaadir oo ay wasaaraddu maamuli jirtay ayaa sheegtay in wasaaraddeedu shaqo adag qabatay, waxayna u mahadcelisay guddigii labada dhinac ee hawshan ka soo shaqeeyay, waxayna xustay in wali la sii shaqeyn doonaan gobolka Banaadir. shaqo weyn kadib waxaan rabaa si gooni ah inaan u mahadceliyo guddigii labada dhinac ahaa ee waqti juhdi geliyay soona afjaray hawsha usbuucii hore, maantana noo suurtageliyay ilaahay ka sukow in hawshaan adeegyada caafimaadka asaasiga lagu wareejiyo gobolka Banaadir. gobolka Banaadir wuxuu nasiib ku leeyahay wasaaradihii dowladda federaalka inay degan tahay. waajib weynaa naga sii saaran sidii aan u fulin lahayn hawsha. waqti ay soo socotay waxyaalo badan aan kala dhex galay oo ugu dambeeyay coronavirus. waxaan rabaa si qaas inaan ugu mahadceliyo kaadiriinta caafimaadka ee bulshada gobolada degmooyinka laamaha kala duwan ee gobolka Banaadir oo runtii COVID
wacyigelinta iyo ka warqabka la'aantood aan meeshaan maanta aanan soo gaarinin aada u mahadsantihiin. waxaan rabaa gooni inaan ugu mahad celiyo Ismaan Dheere oo runtii gobolka waqti badan iyo juhdi badan geliyay. waxaan maanta aan wareejinayno ha ahaadaano resourceski yacni qalabkii dhismooyinkii iyo shaqaalaha ka shaqeeya oo ah isla shaqaalihii gobolka degmooyinka runtii sahlay hawsha inteeda 90%. Ismaan sharaf iyo qadarina agteena ka leedahay garabkaada Allah. waxaan rabaa meesha ay taagan tahay inay ka sii ficnaato say ugu ficnaan kartaa adeeg caafimaad laydinku wareejiyo gobolka keliya ma aha caafimaadkiisu u wanaagsanaado waxaa jira waxyaalo badan oo ku weeraarsan oo afka qalaad lagu dhaha social determinants of health uu ka mid yahay bey'ada ay ka mid tahay shaqada qofka uu helaayo waxbarashada yacni waxyaalo badan oo saameeya caafimaadka in la dhiso si caafimaad buuxa loo helo waa idin kala shaqayn doonaa annaga. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo maanta meel fagaara ah kula wareegay adeegyada aasaasiga ah ee daryeelka iyo caafimaadka bulshada gobolka banaadir ayaa sheegay in daadejintani tahay mid laga soo daadejiyay heer federaal loona soo daadejiyay heer gobol. waxa uuna xusay in sida ay u maareeyeen maamulidda waxbarashada ay u maamuli doonaan daryeelka caafimaadka gobolka banaadir. maantay sida aad u jeediin waa maalin weyn farxadeed. maalintan waa maalin la soo bandhigayo si marqaati ahaan loo soo bandhigayo daadejinta adeegyada caafimaad taasoo laga soo daadejinayo levelka federaalka ah loo soo daadejinayo heer gobol ama gobolka banaadir. waxaa laga yaabaa arrintaas inaan dadku si qoto dheer oo buuxda u fahamsanayn. taas macnaheedu waxay tahay wasaaradda caafimaadka waa heer federaal waxay wasaarad u tahay dhammaan dalka oo dhan ayay u tahay. ma jiro wasaaradda caafimaadka federaalka ah iyo hooyada daryeelka u baahan ee xaafadda joogta cid u dhaxaysa ma jirin. waa jireen dadaallo la waday laakiin qaab nidaamsan ee dowladeed ee isaga hooseeya arrintaas ma jirin. in arrintaas la sameeyo oo maamulka gobolka banaadir ee si kala hooseeya oo mas'uuliyad iska saaro caafimaadka bulshada ayaa loola jeedaa. sida maamulka gobolka uu isaga xil saaray waxbarashada ubadka ku nool gobolka banaadir. mas-uuliyaddeena ayay ka mid tahay waxbarashada iyo caafimaadka waa adeegyada bulshada ay sida gaarka ugu baahan yihiin inaan handalgareyno ama gacanta ku qabanno. sidoo kale infrastructure-ka ama magaaladan caasimadii dalka in laga shaqeeyo la hagaajiyo nadaafadeeda la hagaajiyo dhismaheeda laga hagaajiyo wadooyinkeeda waxay ka mid tahay mas-uuliyaddeeda. maanta waxaan u joognaa markaa mas-uuliyadda heer gobol inay xil gaar ah iska saareen oo ay qaataan mas-uuliyaddooda ugu aadan xagga caafimaadka bulshada. guddoomiyaha gobolka ku-xigeenka agaasimaha caafimaadka guddoomiyaha degmada ku-xigeenkiisa midka waaxda kaanlaanta inay mas-uuliyadi ka saaran tahay ayaa loola jeedaa.
ka warqabka bulshada ee xagga caafimaadka oo wax laga weydiinayo lagulana xisaabtamaayo ubadka Soomaaliyeed hooyada Soomaaliyeed ee u baahan daryeelka caafimaad ee laanta uu mas'uulka ka yahay ku nool inuu warbixinteeda soo gudbiyo gaarsiiyana wixii daryeel ah ee ay ugu talagaleen dawladda Soomaaliya ee heer federaal wasaaradda caafimaadka iyo maamulka gobolka Banaadir ay ugu talagaleen inuu gaarsiiyo lagulana xisaabtamo taas ayaa macnaheedu tahay sidoo kale hay-adaha samafalka ee bulshada Soomaaliyeed ka taageera xagga caafimaadka inay sidoo kale mas'uuliyad ka saaran tahay maamulka gobolka Banaadir ee min heer gobol iyo heer degmo ku xaqiijinta samafalka caafimaad sida inuu gaaray bulshada